Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu walaalaha garbeyga oo kusoo dhawaada wehelkii dunida iyo waxtarkii bulshada anigu waxaan ahay Xafsa channelka aad naga daawaneysana waa Xafsa channel alaa barnaamijkan waxaa idiin soo gudbisaa islaaniga waa walaashin Xafsa Sayid soo dhawaada meel walba aad joogtaan waxaan Allah subxaanahu wa tacaala idinka baryaa cimri dheer cibaado suubayn Allah idin siiyo insha Allah waxay inoo soo socday kitaabkeeni imtixaanaha ee la magac baxay baro 100 xadiis hase yeeshee intaan u gudgalin mowduuceeni maanta haddii ay tahay marka ugu horeysa aad channelka soo booqatay fadlan subscribe saar haddii aad hore noo joogteen like share la wadaag asxaabtaada nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay waxaad naftaada la jeceshahay la jeclo walaalkaaga waad ku mahadsantahay haddii aad subscribe saarto kusoo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub iyo darsigeeni 33 بإذن الله بسم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له نبي صلى الله عليه وسلم وحوده إنسان كدي ودنتو عمل كيسو وقايا إلا مركا لغريب السدح ilaa min sadaqatin jaariya sadaqa jaariya waxaa loola jeedaa qofka tusaale ahaan meelaa la dhisay ama masaajidaa dhisan sadaqa jaariya u soconayso geedaa lagu beeray geedkaas mar walba qof aa ku siyaarsanaya sadaqa jaariya yacni wax walba waraad sii leh waxaa la dhahaa sadaqa jaariya oo cilmi yuntafacu bihi amba cilmi waxtar leh مثلا قفا القرآن لبري حديث لبري wax walbo يعني wax walbo maad ama diin wax ku saabsan ayaa bartay يعني waxa waaye wax laga faa'iiday oo waladin saalix yad'u lahu amba walad saalix ah waalidkiisa markuu dhinto kadib u duceynayo insha Allah waxaan rajeynayaa inaa wax badan ka fahanteen haddii aan mar labaad ku celiyo nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay insaanka haddii uu dhinto camalkiisu wuu go'ayaa ilaa 3 marka laga reebo sadaqa jaariya u soconaysa amba cilmi waxtar u leh amba walid saalix u duceynayo markuu dhinto kadib guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkayga maanta ood ku mahadsantahay daawashada muuqaalkayga haddii aad dhamaysatay like garee ha iloobi inaad subscribe saarto السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته